kulan wacan oo wanaagsan dhammaantiin inta halkan inagala socda daawadayaasha iyaga iyo dhegeystayaashaba wararka ugu dambeeya ee Soomaaliya ayaan halkan idinkula wadaagnaa akhbaaraad iyo weliba warbixino kuwii ugu dambeeyey saacadihii aanu kasoo gudubnay iyadoona haddaba wararka ay yihiin kuwa kala duwan aanu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tababar waxa uu usoo xiray xerada ciidamada tuksam ee magaalada muqdisho saraakiil iyo ku-xigeenadooda ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabada tababarka ciidamada loogu soo xirayay iyo madaxweynaha waxa ku helinay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho عمر محمد عمر فيلش تليها ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdulqaadir Maxamed Nuur jaamac saraakiisha tababarka loo soo xiray ayaa soo bandhigay gaardis ay ku muujinayeen awoodooda iyo xirfadooda ku aadan sida ay uga go'an tahay in ay dhiigooda iyo naftoodaba u huraan difaaca qaranka iyo badbaadinta ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyay tababarka ay siisay ciidamada xoogga dalka wuxuuna saraakiisha kula dardaarmay in wixii ay soo barteen ay uga faa'iideeyaan saraakiisha ciidamada kale wuxuu ku booriyay in saraakiishu ay u diyaar garoobaan howlgalla ka dhan ah shabaab oo lagu xurmeynayay deegaanada ay weli ku sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Filish ayaa isna qaar ka mid ah ciidanka tababarka loo soo xiray guddoonsiiyey shahaado sharaf ay ku mutaysteen kartidooda iyo dadaalkii ay muujiyeen muddadii tababarka ay ku guda jireen wararka aanu ka helayno deegaanka Coomaad oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi ay duqeyn ka geysteen diyaarado dagaal deegaanka Coomaad ayaa waxa ku sugan xubno ka tirsan ururka shabaab waxaana la sheegay in duqeynta la beegsaday saldhigyada shabaabka ee deegaanka Coomaad sida dadka deegaanka ay sheegeen lama oga khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaalka waxaana wararka intaasi ay ku darayaan in xilliga duqeynta ay dhaceysay ay dhaqdhaqaaqyo ciidan wadeen xubno ka tirsan ururka shabaab dad diiday in magacooda iyo codkooda loo adeegsado qalabka warbaahinta ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay maqleen jugta duqeynta balse aysan weli kala cadayn khasaaraha kasoo gaaray shabaab iyadoona loo diiday in loo dhowaado halka ay ka dhacday duqeynta diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa inta badan duqeymo noocani oo kale ah la beegsada saldhigyada shabaabka waxaana duqeymahan ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan xubno ka tirsan shabaab ay ka gudbeen xadka gobolka Hiiraan ayna weerareen deegaano ka tirsan deegaanka Soomaalida madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu walaac xoogan ka muujinayaa xaaladda amni ee xilligan Soomaaliya isagoona sheegay in dalka uu ku sugan yahay xaalad aad u daran oo dhanka amniga ah waxa uu sheegay in laamaha amniga iyo shacabka Puntland looga baahan yahay in ay muujiyaan feejignaan dhanka amniga ah maadaama dagaalo ay ka socdaan meelo ka mid ah Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaasi oo ay qayb ka yihiin ururka shabaab waxaa hadalkiisu intaasi ku daray madaxweynaha Puntland in dadka reer Puntland ay yihiin dad midaysan oo iska celiya cadowgooda wuxuuna mar kale ugu baaqay shacabka iyo laamaha amniga in ay sii xoojiyaan feejignaantooda dhanka amniga isla markaana ay ilaashadaan maamulkooda hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan xubno ka tirsan ururka shabaab ay weerar ku qaadeen maamulka dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana Puntland oo xuduud la leh maamulka dowlad deegaanka ay saxiixdeen heshiis iskaashi dhinaca amniga ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aqalka madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan wafdiga James Swan ayaa waxaa qayb ka ahaa madaxa hay'adda socdaalka qaramada midoobay IOM ee Soomaaliya iyo ku-xigeenka wakiilka hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR
waxaana kulankaasi ay yeesheen ay uga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta amniga, abaaraha, la dagaalanka waxaa loogu yeera argagixisada iyo hirgelinta mashaariic horumarineed. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa madaxda Koonfur Galbeed uga tacsiyeeyay mas-uuliyiinta lagu dilay qaraxyadii ka dhacay Baydhabo iyo Marka. Wuxuu sheegay in ay xoojin doonaan wada shaqaynta kala dhexeysa iyo taageerada ay siiyaan. Dhankiisa madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa uga mahadceliyay taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya, isagoo ugu baaqay in ay kordhinayaan mashaariicda qaramada midoobay ay ka fuliso deegaanada Koonfur Galbeed. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa wada booqasho uu ku tagaya deegaanada dowlad goboleedyada, wuxuuna shalay tagay magaalada Dhuusamareeb iyadoo la filayo in uu dhowaan sidoo kale tago deegaanada dowlad goboleedyada ee kale. Haddaba Muqdisho waxaa aad loo hadalhayaa golaha cusub ee wasiirada ee xukuumad cusub oo uu soo dhisayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyadoona saacadihii ugu dambeeyay uu ku guda jiro. Warar aynu helayno waxay si hoose u sheegayaan in haatan ay isugu dhan tahay ra-iisul wasaaraha howshiisa, islamarkaasina xilli walba la filayo in uu ku dhawaaqo golaha wasiirada ee xukuumadiisa cusub. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa wada tashiye iyo kulamo gaargaar ah oo muddo soo qaadanayay ka yeelanayay arrinta golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqayo ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha ayaa haatan haysta muddo 4 cisho ah, waa waqtiga dheeraadka ee baarlamaanka ay dhowaan ugu dareen 10 maalmood ah, iyadoona la sheegayo in uu haatan ku wado in golaha wasiirada uu shaaciyo xukuumadan cusub oo ay wada tashiye ka yeelanayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Ayaa noqon doonta mid markii ugu horeysa ay ku yaraan doonaan xildhibaanada baarlamaanka sida wararka aynu ku helayno. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la filayaa in golaha cusub ee wasiirada uu shaacin doono uu ku dhawaaqo saacadaha ina soo aadan sida wararka aanu ku helayno.